بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتها بوندا وديال كسو دوادا وركا تلفزيون NTN oo hadaan kala aad ka daawataan NTN TV. qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona wasiirka maaliyadda dawladda Soomaaliya oo looga yeeray maxkamadda. waa maxay kiiska loo haystaa wasiirka? madaxweynaha Soomaaliya wuxuu bogaadiyay ansixinta golaha shacabka Soomaaliya maanta ay ku ansixiyeen ra'iisul wasaaraha dalka. Hilla Soomaaliya waxay beenisay warar sheegayay in madaxweynaha Soomaaliya uu si qarsoodi ah ku tagay dalka Israa'iil. golaha aqalka sare waxay ansixiyeen guddiyo ay iska soo dhex doorteen gaadiidleyda Mandheera ee dalkaasi Kenya waxa ay cabasho ka muujiyeen handadaad ay kala kulmayaan al-shabaab. ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland howlgalo ka sameeyay gobolka Jubbada Hoose. qaramada midoobay waxay mar kale digniin ka soo saartay abaaraha Soomaaliya. koox waysan oo wiil dhalinyaro ayaa yeerkiis ku diray xaafad kamid ah magaalada Muqdisho. qodobada wararka dibadda waxaad ku daawan doontaan muhaajiriin ku dhintay xadka Spain iyo Morocco. Mareykanka oo Taliban ku wareejiyay maxbuus ku xirnaa jeelka Guantanamo Bay. waa Sabti 25 June sanada 2022 warkii oo faahfaahsan. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa looga yeeray xafiiska xeer ilaalinta qaranka gaar ahaan qaybta qaabilsan dambiyada lidiga ku ah maaliyadda iyo dhaqaalaha sida lagu sheegay warqad ka soo baxday xeer ilaalinta. wasiir Beyle oo muddooyinkii la soo dhaafay ka dayrinayay qasnada qaranka Soomaaliya ayaan la ogeyn si rasmi ah eedeymaha loo haysto, balse xeer ilaalinta waxa ay sheegtay in la weydiin doono arrimo la xiriira maamulka maaliyadda xafiiska qaranka Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku bogaadiyay golaha ama guddoonka iyo xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ansixinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo 15 bishaan uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya. mahad ballaarin ayaan u jeedinayaa golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ila qaatay magacaabista ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo aan markii horeba ku soo xushay aqoonta iyo kartida hogaamineed ee uu leeyahay howlaha hortabinta ula dalkeena, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya. madaxweynaha ayaa tilmaamay rajada shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan dhismaha xukuumad tayo leh oo ka shaqeysta samata bixinta dadka Soomaaliyeed iyo xaqiijinta yoolka Soomaaliya dib u heshiisiinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa shacabka ka codsaday inay ku garab istaagaan ra'iisul wasaaraha cusub gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee hor yaala, isagoo ugu duceeyay in uu alla la garab galo mas'uuliyadda culus ee la saaray. maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray warar la isla dhex marayay oo sheegayay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ugu maqnaa dalka isu taga Imaaraadka Carabta uu safar qarsoodi ah ku tagay dalkaasi Israa'iil. hadal haynta ayaa timid kadib markii qaar ka mid ah wafdigii ku heliyay madaxweynaha safarkiisii ugu horeeyay ee dibadda ku tago tan iyo markii la doortay bishii la soo dhaafay, kuwaasi karantiin lagu geliyay dalka Imaaraadka Carabta. golaha aqalka sare ayaa maanta yeeshay kulankoodii 8aad ee ka fadhiga koobaad iyagoona ansixiyay xubnaha guddiyada aqalka sare oo ka koobnaa 8 guddi. guddiga xasaanada anshaxa xeerosaadka iyo daryeelka sanatarka, guddiga garsoorka arrimaha diinta iyo awqaafka, xuquuqul insaanka iyo haweenka iyo carruurta, guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dawlad goboleedyada, guddiga difaaca iyo amniga, guddiga arrimaha dibadda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. koox looga shakisan yahay inay al-shabaab ka tirsan tahay ayaa muxaadaro 2 saacadood qaadatay u jeediyay dad rakaab ah oo saarnaa bas ku wajahnaa magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, sida ay ku warantay qaar ka mid ah warbaahinta Kenya oo soo xiganaysa booliska. waxa ay sheegeen in shabaab si aad ah u hubaysan ay baska shirkadda Al-Mukarram ku joojiyeen inta u dhaxaysa deegaanada Daba iyo Lomo Hall, isla markaana ku amreen rakaabka inay baska ka soo degaan.
waxay muddo 2 saacadood ka badan baska ka dhex raadinayeen dad aan ka soo jeedin gobolkaasi sida uu ku waramay wargeyska The Daily Nation. wargeyska ayaa sidoo kale ku waramay in kooxdii joojisay baska ay 2 qaybood isku kala qaybiyeen. qayb waxay ahayd qayb af Soomaali muxaadarada ku jeedinaysay halka qayb kalena ay luqadda Ingiriiska ku soo jeedinaysay. lama oga si rasmi ah kooxda ay ka tirsanaayeen walow boolisku ay sheegeen in si aad looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab oo inta badan weerar gaadma ah ka geysta xadka Soomaaliya iyo Kenya. ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xooga dalka Soomaaliya ee Danam ayaa hawlgal qorshaysan saacadihii la soo dhaafay ka sameeyay deegaano hoostaga magaalada Kismaayo ee xarunta ku meergaarka oo ah Jubbaland. intii uu socday hawlgalkani waxaa suurta gashay in gacanta lagu dhigo xaruntii ugu weyneyd ee kooxda Al-Shabaab ay ku lahayd ama ay ku kaysan jirtay agabyada kala duwan kuwaasi oo ay ka samaysay miinooyinka dhulka lagu aaso kuwa gawaarida ay u dhigaan iyo kuwa kale oo kala duwan. deegaankaasi oo ku yaala goob qiyaastii 60 kiiloomitir magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland dhanka waqooyi uga beegan. saraakiisha hogaaminaysa hawlgalkaani ayaa sidoo kale sheegay inay ku raad joogaan xubno ka tirsan Al-Shabaab ayna sii wadi doonaan hawlgaladooda ilaa iyo inta ay ka ciribtiri doonaan xarumaha kaydka Al-Shabaab ee caynkan oo kala ah. hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha bini'aadanimada ayaa sheegtay waxay jimcihii la soo dhaafay sheegtay inay raadinayso 993 milyan oo dollarka Mareykanka ah si ay u bixiso gargaar naf badbaadin ah si looga hortago abaaraha soo food saaray dalka Soomaaliya. xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay OCHA ayaa sheegay in saameynta abaarta iyo cadaadiska dhaqaale ee dalka ka jira ay sii kordhinayso si ballaarashada abaaraha dalka iyo macluusha baahsan ee soo food saartay dadka Soomaaliyeed. bayaan ka soo baxay OCHA ayaa lagu sheegay in dad gaaraya 7.7 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo kuwaas oo 7 milyan oo ka mid ah la sheegay inay abaartu saameysay. koox ku hubeysan bastoolado ayaa fiidnimadii xalay xaafad ka tirsan degmada Dharkeelle ee gobolka Banaadir ku dilay 2 nin oo la sheegay inay ka mid ahaayeen dadka deegaanka ama dadka deganaa degmadaasi waxaana falkani ka soo baxaya faahfaahin dheeraad ah. goobjoogayaal ayaa waxa ay ku soo waramayaan in diblay hubeysan ay 2 nin ku dishay xaafadda Suuqliif ee degmada Dharkeelle xilli ay meel wada fadhiyeen labadooda iyagoona hal mar ku wada geeriyooday rasaas goobta lagu wada furay. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in 18 muhaajiriin ay dhinteen kadib markii dad aad u badan ay isku dayeen inay ka gudbaan xadka Spain. saraakiisha ayaa sheegay in muhaajiriinta qaarkood ay ka soo dhaceen darbiga xadka halka kuwa kalena ay isbuurasho ku dhinteen. Spain ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka labada dhinac ay ka hortageen rabshado ay sameynayeen dadkaasi. rabshadaha ka dhashay xadka labada dal ayaa waxa ku dhaawacmay tiro muhaajiriin ah iyo dhowr ka mid ah saraakiisha ciidamada amniga ee Morocco iyo Spain kuwaas oo haatan lagu dabiibayo isbitaalada halkaasi ku yaala. ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sánchez ayaa cambaareeyay weerarkaasi rabshadaha dadkaasi ay sameeyeen ee ka dhacay xadka labadaasi dal. ururka Taliban ee xukuumadda Afghanistan ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dowladda Mareykanku ay xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Cuba ay ka sii deysay mid ka mid ah 2 maxbuus ee ugu dambeeyay ee u dhashay dalka Afghanistan kuwaas oo lagu hayay xabsigaasi 15 sano ee u dambeeyay. ururka Taliban ayaa sheegay in sii deynta Asadullah Harun ay ka dhalatay xiriir toos ah oo arintaasi ay ka yeesheen Mareykanka iyo ururka Taliban. maxbuuskan la sii daayay oo haatan da'diisu ay tahay 29 jir ayaa lagu wareejiyay saraakiil Taliban ah ee ku sugan magaalada Dooxo ee xarunta dalkaasi Qatar halkaas oo ururka Taliban ay ku leeyihiin xafiiskooda diblomaasiyadeed ee bariga dhexe. wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa Arbacadii sheegtay inay sii deysay Harun ama sii deynta Harun ay daba socotay go'aan ka soo baxay maxkamadda Mareykanka oo ahaa bayaan ku aadanaa
siideynta maxaabiista aan lagu helin xukunnada sharciga ah iyo kuwa loo adeegsado kala wareejinta caalamiga ah warkii aad kala socoteen intii aan TV wanaga intaas waana ku mahadsantihiin daawashadiina NTN TV